ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka sahanka dunida. Charlie Spencer Chaplin waa nin Britain ah, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan taariikhda shineemooyinka. Chaplin wuxuu u shaqeeyay sidii jilaa, agaasime, laxamiiste iyo qoraa dhacdooyin. Wuxuu aasaasay shirkadda United Artists, taasi oo u suuragelisay inuu si buuxda ah ula wareego filimada. Haddaba intaana gudagalin barnaamijkeena, fadlan subscribe saar kanaalka, gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. Haddii uu ku anfacana muuqaalkani, fadlan like garee. Nasiibku mararka qaar wuxuu ka ciyaaraa doorka taariikhda, sidaas daraaddeeda Charlie Chaplin si uu u noqdo ninka uu yahay ama ninka uu ahaa, waxa aad iyo aad u taageeray nasiibkiisa. Charlie Chaplin wuxuu ku dhashay London 1889. Wuxuu ku noolaa deegaan inta badan ay ka buuxaan saboolnimo buuxda. Bilowgiisa masraxa wuxuu ahaa door kale ee hooyadii oo si lama filaan ah ku lumisay awoodii ay ku heesi lahayd bandhigeedii masraxa ayuu ka faa'iideystay. Tanina waxay ku kaliftay agaasimaha oo hooyadii ahayd inuu tuso wiilkeeda Charlie wax qabadkiisa heesaha. Charlie-na wuxuu ku guuleystay hanashada dhageystayaasha qalbigooda, wuxuuna bilaabay riyadiisii. Charlie Chaplin wuxuu awood u yeeshay isagoo aamusan in uu qarnigii 20aad uu noqdo midka ugu fiican, wuxuuna u dadaalay inuu helo xirfado kala duwan oo nooc walba ah iyo doorarka masraxa. Shakhsiyadiisa ugu horeysay waxay ahayd riwaayadii Sherlock Holmes, kadib markii uu ku biiray shirkad magaceed la yiraahdo The Fred Company oo isaga fursad u siisay inuu isbuucii qaato $150. Chaplin wuxuu u dhaqaaqay inuu qandaraas la galo shirkad kale oo wax soo saar ah si uu u tijaabiyo waayo aragnimadiisa ugu horeysay ee adduunka. Isagoo sameeyay filim caadi ah 1915 ciwaankiisuna ahaa The Tram, kadibna wuxuu sii waday inuu ku guuro mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka una wareego mid kale ilaa uu aad u noqday mid taajir ah. Laakiin tani ma aysan joojinin jaceylkiisa. Charlie Chaplin muuqaalkiisii ugu horeeyay uguna dambeeyay filimada wuxuu ahaa 1727, waxaana la guddoonsiiyay abaalmarin. Noloshiisuna waxay ku soo dhammaatay Switzerland 1977. Waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkan ku caawiyay. Haddii uu ku anfacay la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. Haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka, hadda subscribe saar si aad muuqaaladeena dambe ula socoto.